farmaajo xoog dalka ma ku haysan karaa Soomaaliyana xilligan nidaam kale talis ah ma ka hirgeli karaa Soomaaliya dawladnimada wali kuma baahsana guud ahaan dalka nidaamka federaalka ahna waxa uu qaybiyay awoodii dawladda dhexe oo aan hal meel ku urursanayn farmaajo waxa uu ka taliyaa inta badan Muqdisho iyo Gedo waxa soo raaca maamulada isaga raacsan oo go'doon ku ah 3 magaalo oo hareeraha ay ka joogaan al-shabaab haddaba maxay tahay waxa uu isku halaynayo iyo awoodda uu ku haysto Muqdisho 170 askar iyo saraakiil isugu jira oo beeshiisa ah 5 ilaa 6,000 oo askari sida militariga u tababaran oo ay Turkidu hubaysay loona yaqaano gorgor iyo 900 oo sida booliiska u tababaran oo haram cad loo bixiyay waxa uu arkaa in uu ku caburin karo Soomaaliya ciidamada xoogga dalka waxa lagu qiyaasaa 25,000 80% ciidamadan waxa ay ku sugan yihiin gobolada shabeelooyinka ee ku gadaaman Muqdisho intooda badanna si toos ah uguma amar qaataan farmaajo 2017 dawladda ayaa ka jartay mushaarka ciidamadan waxa ayna taageero ka helaan ganacsatada Muqdisho ciidanka booliiska ah siyaasad lug kuma lahan ciidankan ma hoos tagaan farmaajo waxa taageero midowga Yurub waxa ayna u hoggaansamaan shuruucda caalamiga ah waxa intaas dheer ciidanka danab iyo gaashaan oo labaduba ay gacanta ku hayso dawladda Mareykanka oo aan iyana marna loo adeegsan karin dagaal siyaasadeed labada guutana waxa la dhisay xilliyadii Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh arimahan oo dhan marka la isku soo daro waa sababta loo yiraahdo Soomaaliya waa dal jilicsan oo ay xilli kasta dagaal ka qarxi karaan fragile state sidaas darteed ayay ugu baahan tahay madaxweyne taxaddar badan nabadoon ah ka fakara cawaaqibta oo aan kaliya ku dhaqmin waxa ay maskaxdiisa u sawirayso madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday waxa uu ku hawooday ee ah inuu kaligii taliyo noqdo xilligan Soomaaliya suuragal kama ahan balse farmaajo waxa uu istusay in Soomaalida ay ka daashay dagaal gaar ahaan Muqdisho oo dhaqaale ahaan kobcisay 20 sano ee ugu dambeysay ganacsiyo waaweyn iyo dhismayaal casri ah ayaa ku soo kordhay sidaas darteed farmaajo waxa uu si dadban dadka Muqdisho ugu sheegay in ay kala doortaan burburinta hantidooda iyo inay si abadiya xukunka ugu ogolaadaan dabcan waa mowqif ay adag tahay oo ka fiirsasho u baahan haddii 4 sano oo kale uu sii joogo oo tirada ciidanka daacadda u ah uu 30,000 gaarsiiyo gobollo cusubna uu la wareego dalal cusubna xiriirka u jaro ganacsi noocee ah ayaa jiri doona farmaajo maanta ayuu qabasho leeyahay iyada oo uusan dhiig ku daadan